inkastoo uusan ahayn waraynu xaqiiqadiisa wada hayno haddana waxaa la wariyay in wasiir ka tirsan xukuumadda Hindiya ay jilaaga caanka ah ee Salmaan Khan ku eedaysay inuu sabab u noqday guur la'aanta dhalinyaro badan oo isagu tusaale nololeed u yahay maadaama ninkani ma guursaday yahay. wasiirka ayaa sida la sheegay Salmaan ka codsatay inuu guursado si dhalinyarada ay sheegtayna guur u helaan. haddaba muuqeenan waxaynu isku dultaagaynaa inta aan ka ogaanay sababta jilaagan ka hortaagan guurka oo markii aynu baaray aynu ogaanay qayb ahaan sababaha uu guur la'aanta u yahay. Salmaan Khan sida la wariyo dabci ahaan waa nin jecel qoyskiisa, carruur dhalidda iyo nolosha guurka. ha yeeshee nasiib darrooyin isbiirsaday oo marar kala duwan ka burburiyey guurar uu yagleeli lahaa ayaa sababay inuu guud ahaan ka haro hamigiisa guurka. There was a time that I really wanted to get married, and then it just didn't work out, ma aha inaanan weligayba rabin inaan guursado, waan doonayay dhabtii, laakiin waxuun ayaa jiray. mar walba waan ku dhowaanayay midaas mase dhacayn. haddaba waa kuwan qayb ahaan guurarka la shaaciyey ee haddana ka burburay Salmaan Khan, kuwa oo sababay inuu guud ahaan joojiyo doonistiisa guurka. gabadha ka mid ah xidigaha Bollywood ee lagu magacaabo Sangeeta Bijalni ayaa la wariyay in goor sii horeysay ay guur wada qorshaysteen, guurkaasi oo agaasinkiisu gaaray halkii ugu dambeeyay, balse ugu dambeyn la shaaciyay in la joojiyay sabab aan la sheegin oo dhinaca qoyskiisa ka timid ayaa la sheegay in guurkaasi ku burburay. jilaa kale oo la yiraahdo Somi Ali oo iyana ay muddo isu doonanaayeen ayaa guurkoodu burburay kadib markii xitaa la daabacay invitationskii lagu geli lahaa xafladda arooska. gabadhii ku guuleysatay tan haweenka adduunka ugu qurxoon 1994 ee Aishwarya Rai, kana mid ah xidigaha caanka ah ee Bollywood, ayaa ka mid ah kuwa ninkani guurka la qorshaystay ee haddana kala kulmay qalbi jabka sababay inuusan dib guur ugu hamiyin. Aishwarya iyo Salmaan ayaa xiriirkoodu burburay iyadoo ay dhowdahay muddadii ay guurka ku ballameen, waxaana la sheegay in burburka xiriirkoodu sabab u ahaa masayr badan iyo aaminaad xumo ka timid docda Salmaan oo si weyn uga masayray xidigaha kale ee ay soo saaridda filimada kala shaqeynaysay Aishwarya. khilaaf arrintaasi ka curtay ayaana curyaamiyey qorshihii aqalgalkooda. fashilada ku yimid guurarkiisan iyo qaybo kale oo aynaan xusin ayaa sabab u ah guur la'aanta ninkan sida la wariyay. qoyskiisa ayaana sabab u ah in badan oo ka mid ah burburka guurarkiisa sida aynu ogaanay. Khan aabihii waa Muslim, hooyadiina waa Hindu, waxaana uu isku qeexaa inuu Muslim iyo Hindu labadaba yahay. haddaad doonayso xaqiiqooyinka ninkan ina la wadaag waxa aad doonayso inaan kaaga warino isaga.